qaar ka mid ah waalidiinta ardaydodu ay dhigato dugsiga sare ee Nuuraddiin ee inamada ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdadii maalintii shalayta ahayd ka dhacday dugsigaasi Nuuraddiin ee inamada. Waalidiintan ayaa cambaareeyay dhacdadii maalintii shalayta ahayd ka dhacday dugsiga Nuuraddiin. Sidoo kale waxa ay fariin u direen guud ahaan bahda waxbarashada ee Somaliland. Dib halkan ka dhacday oo shoobara ahayd oo ardayda ka timid in koobanibaha soo abaabushay ay sameeyeen runtii dhaawac weyn baa iskuulka soo gaadhay, qalab fara badan baa burburay. waa la qiimeyn doonaa kulay oo hawlusha guddi baa ku shaqale oo gacanta ku haysa. waxa uu quraatano halkan dareenkayga inaanu ka muujino inaanu ka xunahay dhacdada shalay iskuulka ku dhacday oo amid bulshadii ku dhacday ubadkii aanu dhalay in waalidka u ahayn oo waxbarashadii runtii ay ka kala dhantaalmayso. falalka noocaas oo kale anagu afkii waalidiinta ku hadlayno waa cambaaraynaynaa oo waxay fawdo ay sababi karaan haddii waxa noocan oo kale uu nagu sii socdo. xukuumadda waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si iskuulku aanu muddo u sii xidhnaan oo ardaydii aanay waxbarashadii uga kala dhicin in gacan buuxda laga geysto iskuulka sidii uu dib ugu furmi lahaa. dee kolley muddo u xidhnaan inta dayactirku uu socdee laakiin inay muddadaasi noqoto muddo aad u kooban waayo arday fonfoorraabaa ku jirta oo imtixaankii GC-gaas sugayo kuwo kale waxbarashadooda daba socotaa. taa xukuumadda wasaaradda waxbarashadu inay gacan buuxda ka geysato iskuulku maadaama private sector-kii uu ka tirsan yahay iyadoo uuna xukunto in sidii public gaba ay ugu gurman lahayd wasaaradda waxbarashadu ay ugu gurmato. taa waa ku guubaabineynaa laakiin inta aan odhanayaan carabka ku adkeynaya waxa weeye uun inamadii waxaan soo organize gareeyey ee hormuudka ka ahaa rag ka mid ah ayaa imika weli hadlaya oo miidiyaha ka hadlaya oo dee kolley inaan ugu horreeyaba qaar kalena dabada uu ku hayo oo khasaarahaasoo dhacay kadib miidiyaha la hadlay. taa ciidamada booliska waxaan leeyahay dawayna tallaabadeedii qaadaan oo sidee fawdadii looga hortago. ilmihii hadduu arko kii waxanba loo tirinayo weli miidiyihii ka hadlaya dhiirasho kale ayaa imanaysa. taasina ciidamada booliska waa ku adkeynayaa halkana baaqaa waa uga dirayaa. waxaanu halkan ku fadhinaa waalidiintii iskuulka waxaanu aad u cambaaraynaynaa falkaa ka dhacay iskuulka oo ah fal aad iyo aad u foolxun wax loo adkaysan karayana aanu ahayn. labaan u kala qaadayaa mid waxaan waaninayaa caruurta iyo ardaydayada waxaan ku waaninayaa dareen waalid waxaan ku waaninayaa dareen ka sii xeel dheer oo dareen hooyo nimaan ku waaninaya. waxaan leeyahay hooyo xiisad kaliya oo idinka maqnaataa idinkama go'do iskuulkiina ha iskaga ciyaarina inta qaska iyo qalanqaasaha wada maamulka iskuulka farta ka saara si aanu iskuulkiinu idinka dhaawacmin. waayo waxa weeyaan kuraastan waxa lagu soo iibiyey mushahar fiigi yaraa la idinka qaadayay si kamaraha iyo waxa laaliya waxa burburiseen intii yarada fiiga hay'adda la idinka qaadayay baa lagu soo iibiyey. marka heeriyadood cun ha noqonina. halka waxaan ku fadhinaa muunad ama xayn ka kooban waalidiintii iskuulka dugsiga sare ee Nuuraddiin qaybta wiilasha oo shalay halkan dhibaato weyn ay ka dhacday. ugu horeyn ilaahay baan u mahadnaqaynaayo dhibaatada dhacday iyo intii ay leekayd haddaanay nafa ku bixin ilaahay baan ku mahadinaynaa maxaa yeelay wixii material amba maaddo ah waa laga soo kaban karaa. annagoo ku hadlayna afkii waalidiinta inta joogtay iyo inta maqanba waxaanu ugu horeyn u diraynaa cid kasta oo ay iskuulka cidi u dhiganaysay in aanu ka tiraansannahay ka xunnahay wixii shalay halkan ka dhacay. waa mu'asasad waxbarasho waa dugsi sare kun iyo dhowr boqol oo arday baa wax ku dhigta. markaa ka waalidin ahaan aad iyo aad waxaanu uga xunnahay shalay halkan wixii ka dhacay. waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan la isqaadsiinin oo iskuuladeenna kalena aanay ku dayanin. haddii aan kan wixii ka dhacay wax laga qabanina kuwa kalena way ku dayan doonaanoo mar haddii dhibta dhacday aan wax laga qabanin dhammaantood carruurtu way isku wada daydaan. wax lama filaana noqday wax si ugu dhacayna ilaa imaka wax sharxaya aynaan arag. iskuulkii ugu tayada badnaa ayuu ahaa muddada ilaa kuwii jaamacadaha ka baxay ay dhiganayeen inaanu shaarka lanahay iskuulkan. waanu u mahadnaqayna maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo guud ahaan iskuulka hawsha uu dalka u haya qaranka iyo waxbarashada ummadda uu salka u dhigay ilaa maalintii la bilaabay ilaa maalinka maanta ah. akhlaaqiyaadka aqoonta dadaalka iyo maamulka kartida macallimiinta
iyo maamulka oo la wada ogyahay waddanka laga yaqaano wixii waxaan sababay ma garanayno runtii waa wax laga murugoodo laga tiraayoodo arday iskuulkii wax ka dhiganayay isagoo gacantiisa ku baabi'iyey waa wax aad u fool xun oo aan la sharxi karin inuu macallinkiisa u mahadnaqaa xaq loogu lahaa ardayga maamulkiisa inuu mahadnaqaa xaq loogu lahaa inuu madrasadiisa iyo iskuulkiisa u mahadnaqaa xaq loogu lahaa inuu taariikhda ku qorto xaq loogu lahaa inuu abaal soo celiya xaq loogu lahaa inuu ummaddiisa anfaca xaq loogu lahaa tacabkii galeen wax ka taraa xaq loogu lahaa waxa uu ku kacay wax la filaya ma ahayn ardayda waxaa abaabushayna anugu waxay u jeedaan ilaa imika garan maayo maxamed cumar daariq RTN Hargeysa mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac